Somali Sudanes Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta Kalamaan fadlan subscribe saar YouTube-kana Kalamaan hoy Kalamaanay meel wax soo galay lo ma joogese wala kala leexiya lili caano amaqli jiri abdallah tareer marweey duulaha gaadana ertay ariyamadeeyo nimbo nasiibkiisa ma loo nacaayaya waa soo nibdaade noqoyeeli maayeya miyay dhaheen wal aris urkaash hadda ka hor wuxuu yiri Soomaali allow midee ismaan dhaafkana ka saar musuqa iyo maasuqiyo muhdiga doondoonayo mariidka walaaqa iyo mooryaanta allow ka qabo uumad yahay midnimo mayalka u adkeeya dheegi jari war Kalamaanay dhagax laguma dhiirada inaad dhuunta marisaaye dhimbil laguma taagnaa kariyo dhuxula noolnoole dharga lama dhaweystiya dhilqaha dhiigga ka cabaa dhunkaal ma dheefsado qof uu dhimir ku joogaaye lama dhowrto duul dhimasho iyo dhaawac ku raba cadow aan ku dhaafayna waa la iska dhiciyaa hore waxa maqli jiri dhagax meel dhawaas ku dhacaaye dhawaaqna meel dheer war Kalamaanay aniga waa shakiye waxa la yiri dagaal sidiisaba waxa loo galaa in dhinac ka soo horjeeda aad ka guuleysato jabiso laakiin mararka qaar caalamka waxa kale oo la yiri in badan oo kamid ah dagaalada ka socda waxa looga dan leeyahay in dagaalkaasi dhaco uuna socdo isla markaana aanu dhamaad yeelan si loo gaaro dana siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale marka 20 sano nimanka Soomaaliya wareerinaya maanta shacabkii kacay dawladdiina ku baaqday in la dagaalamo dadka qaar ee kacaga jiidaya ma kuwa danaha ka lahaa war shabaab in la jiido waa lagu ballamay maxaad kala sheegaysaa warda yarteena koraysa say daruus u dhigtaan dulmina uu dhamaado dadku ay u nastaan dalka aynu xoreynay hal aada dagaalka isku duubniba dadka yagow dulli kaga baxdaa dadka yagow nabada intiyo deeqiya wana ku durdurataan alla yiri warnamiya dulinimadu intii ku noolaada fadni waliba arfaday ana hadda tu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro wargooyin war ma haysaanay maanta Kismaayo tii ka dhacday waa la yaabay nimankii shabaab la oran jiray ayagoo qarax iska hormariyay baa waxay weerareen hotel la yiraahdo Tawakkal kadibna gudahay u galeen oo muddo saacada ay ka dhex dagaalamayeen dad rayid ah waxba galabsanina way laayeen caruur iyo dumar iyo waayeel la cid ay dhaafayeen ma jirin balaayaan waxba kala soocaynin weeye kuwaanu ummadoon iskala socon inay la dagaashaa fiicnaan lahayd war ma haysiine shalay iyo maanta masaajid Calgaduuti ka dhacday waa la yaabay dagaalka waxba la isuma reeban shabaabna waa isu habar wacdeena la yiri haday jubbooyinka jireen iyo haday Galgaduud jireen iyo haday Hiiraan jireen iyo haday shabeelada hoose joogeenba dhamaantoodna masaajid Calgaduud ay isugu yimideen la yiri dawladana ay qaban xanta shabaab laga helay waxay sheegaysaa inay dhaheen masaajid Calgaduud iyo aadan yabaal waa inaan awoodna isugu geynaa hadii aan ku jabnana waa jabnay oo Soomaaliya fadhi dambe nooma yaal wargooreen xanta shabaab hadaad soo gudbiso soo xabsiga ku sugi maayo war xantaana waa xog dawladdu u baahan tahay masaajid Calgaduud shabaab waa soo dhoobteen ciidankii dawladuna waa ku wareegsan yahay beeshii deegaankaas ka soo jeedayna in yaroo lamaan doorshay maahan intii kala difaacay ku jiraan diyaaradihii Turkiga laga keenay ee Beyraqdaarna tababar fiican ay ku qaateen la yiri oo sida wax loo duqeeyay aad ugu barteen iyo shiishka aryaadha samidey Abdullaah xantoora soo dhageysto wuxuu yiri shabaab waxay dhaheen badaygu soo buutaacante meelan ka booxo ibanay badaygu soo buutaacante meelan ka booxo ibanay war meelay ka baxaan haday rabaan ma loo baneeyay hana dhaafeene aga wargooyin koonfur baan rabnaa inaan aadnay dhahana sidee loogu banayn war madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu yiri dagaalku mar inuu Hiiraan ka socdo la iska daawado marna Shabeellaha dhexe ka socdo la iska daawado marna Galgaduud ka socdo la daawado hal maaha shabaab
bayna dan u tahay taasi waxayna ahayd hadda masaajid cali gaduud intuu ka socdo dhulkii kale waa cidle in la qabto hiiraan intuu ka socdayna dhulka kale cidlu ahaa buu yidhi alla ilaahay kollayba maanta bu'aala waa cidleeyaa taga war markaad leedihiin shabaabaa isu habar wacday ma shabaabaa isku habara ajaanibaaba ku jirta ma beenta iska dhaaftaan warwar mahaysiina beledweyne maanta waxaa lagu qabtay dameer nimankii qarax ku soo rareen ninkii isqarxi lahay dameerka ma saarnaaye dameerka biyi maswadi war waa falantiina qaraxa lagu soo raray baana dilidhiya kollaybana rumuud lala daba joogay baa dhici kartee reer beledweyne ayaantan waa dhiifoon yihiinoo waa ogaadeen shirqoolka kadibna waa ka hor tageen hadda dameer miskiin oon waxba galabsan laakiin balaaya wax ku rartay baa halkaa ku xijaabtay war ma nimankii 20 jir hooye iyo aabba ku soo tiiriya tacabeeleen qarax ku soo xiraayay bumbada ka dhigahayay miyaa dameer u daahaya war ma haysiine sidaa u yaabantihiin ka daran shaydaan u yaabayaa la yidhi war nimayo waxyaalaha dalkan yaalla wax shaydaan la yaabayo waa u ekaaye wax kaa yaroo kaa yaabii ma aragti war ma haysiine dekadii hobyo waxaa la yidhi doon ku soo xiratay bila kadib ayaa lagu diriray madaxii maaliyadda galmudugna waa lagu dhaawacay war shalay la furay dekadii garacad tii amandheer lagu jiifaday hobyaha idin meehtan iska dile fududaant ma facna aydin fisiro fakfaktaal haddii badanta foolxumaa la kulmey war galmudug hadday hobyo gabeen maxay ugu dirirayaan may garacad u shaqo tagaan warwarka iga dhexgelinina anigoo hobyo iyo dekada idinma sheegine shaydaan ayaabayaan idin idhi waxaana la yidhi haweenay iisaygeedoon farxad iskula noolee muddo 30 sano ah ayaa ninkii xaas kale guursaday islaantii markii ninkeedii uu guursaday xaas kale ma barooran meelna ma aysan fariisan balse waxay qaaday dhowr tillaaboo yaryar koow waxay lambarkiisa ku soo daabacday waraaqo yaryar oo business cards ah waxayna ku soo qortay in laga helayo dhakhtar dadka ugu shaqaynaya lacag la'aan ambulance free ah sidoo kalena dadku ay wici karaan wakhti kasta habeen iyo maalin laba magaciisa waxay ku furtay akoon Twitter ah oo ay ugu magac dhigtay isbarasho lambarkiisayna soo raacisay saddex waxay furtay akoon kale oo Instagram ah kadibna waxay ku daabacday xayeysiin ay ku sheegayso inuu hayo guri ka kooban 4 qol 2 suuli iyo kushiin laguna rabo qiimo aad u jaban maadaama qofka iska gadaya ay haysato daruuf degdeg ah sidoo kalena waxay raacisay lambarkiisii 4 maqaayadaha waxay u qaybisay waraaqo stiikaris waxay ku qoran tahay baafin nin waalan oo ka soo baxsay isbitaalka dhimirka waxayna soo raacisay sawirkiisa iyo lambarkiisa iyo ciwaanka guriga uu la degay gabadha uu hadda guursaday 5 saldhigga booliiska ayay geysay sawirkiisa waxayna ku wargelisay inuu halis ku yahay ammaanka magaalada xaalkiisuna aysan u bogin 6 xarunta CID-da ayay sidoo kale u sheegtay in ninkaani uu si hoose xashiish magaalada ugu iibiyo sawirkiisa iyo lambarkiisana waa u raacisay intaas markii ay samaysay waxay tiri wallaahi dhib ma jecli ee bal aan intaan uga haro xaqaygana allaha soo ifiyo intaas markii xaaladdu maraysa waxaa la sheegay ibliis iyo koox uu hogaaminayo inay ayadii u soo doonteen tababar degdeg ah si ay adduunka uga qanaabtaan aryaadaha naagtaasu ninka nin waalanay ka dhigta mar dhakhtar firii wax ku daaweeyey ka dhigta si dadku u wareersho marna qof waalanay ka dhigta si ilmuhu u dhagax tuuraan marna dembiilo daroogada gaday ka dhigta si boolisku u raadiyo marna amnigoo dhanuuba halis ku yahay tiri si dawladdu isugu tagto marka dhib ma jecli waa tan leexay u reebatay hee warnin maxamed cumar xuseen la yidhaahdaa sheeko kaloo la yaabay buu qoray wuxuuna yidhi nin 15 sano xabsi ku jiray baa ka fakaday kadibna isagoo daalan oo ay ka caddahay oo nafabu gurigiisii si dhuumashaa ku tegey kabacdina xaaskiisii oo lagu isku saaran yihiin oo aan fadhiga uga soo kicin baa waxay tidhi saakay barqadii bay ahayd markaad xabsiga ka fakataye ilaa xilligan xaggaad ku maqnayd sababtoo ah waxaa la joogaa 5tii galabnimo intaana waad maqnayde kadibna ninkii intuu la yaabay siday u fikraysiiya xaasidnimadeeda oo xanaaqay ayuu dib xabsigii ugu laabto askartii isku dhiibay war go'onaynkaasi doqon buu ahaa bihi la ogu gabadhu way jeclayda maxooga laab aryaadaha nin xabsi ka soo fakaday oo dhuudhuumasho ku jira miyay istiri dumar waa luqaafe ama meelo kale ku soo daahay waran bilaamaytaas wali baarafaday maskax gaabana
walaalay maskax gaabnida warmadeeyo ilaa waaba taqiini aryadaha kalamaanay waxaa la yidhi kobtiisa ka tooleysida adna kaarfantii ku toola kobtiisa ka tooleysida adna kaarfantii ku toola war abdulo nin waliba dheega jiray anagoo kobooga tolaayo kiinku daahiyaane kabaalaw karfanta tolaya inkiyaase koroy in weelo war ma haysiina magaalada qardho waxaa la yidhi roobaan ku diin baa daad ku soo rogay ilaa hadda dhimashada waxaa la yidhi hal odayo waa yeelah baa la og yahay dhallinyarada deegaankuna aad bay u gurbatay baa la yidhi war roobaan ku diin dhulka webiyada lahow ku soo fatihi jiraye gormaa qardhana webi yeelatay war qardha waxay leedahay doxyo waaweyn oo webi aan ka liidan war ma haysaana madaxweynihii shiinaha shin binbing mar kale xisbigiisu u doortaa la yidhi talada dalka war hadda ka hor boqol sani roogaaraana hatalay tumay sagaal jir nagaday war ma boqolkii ay rabaan inay wax kale ugu sii daraan yaa iyaga u sheegay horta inuu 100 gaarayo war shiinaha diin looma sheego war shiinuhu hadday diin rabaan miyay muslimiinta wiigar caburin lahaayeen war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh maxamuud dekada garaad shalay markuu xariga ka jaray garow uu tagay xalayna wuxuu ku hoyday Jabuuti aga oo garow ku cashayn maayo miyuu yiri war ma haysaana waxa shir jaraa'id qabtay wasiirka maaliyadda wasiirka amniga iyo wasiirka xigeenka warfaafinta waxayna dhaheen cid kastoo shabaab inta soo wacaan ay lacag weydiiyaan lambarra ay soo bandhigeen bay dhaheen naga soo wacaan annagaana dabagelayna ciddii soo wacday ee lacagta weydiisay tallaabaanan ka qaadaynaa oo mar dambe sooma wici doonaan ganacsataan aqaan lacag jecladeeda qof shaxaad u soo wacday lambarkeeda u gudbi doonaan war marba qofkii lacag ku weydiista haddii lagaa qabanayo marka lacag ummaddan lagu laayo bixin lahayd lambarkiisa soo gudbi war dalku inuu dagaal saxa galay bay tanu muujinaysaa alsayid axmed madow maxaa ku dhacay away jubbooyinkii war ma haysiine ruushka wali wuxuu duqaynayaa la yidhi caasimada Ukraine war waliintan mooshidi meel la duqeey masaajidka ala gaduudu amiirka shabeelaha dhahan walka diriya leey war meesha dameerka qaraxa lagu soo raray waa beledweyne war dameerkaasu meeshay la rabeen hadduu ku qarxi lahaay mashiid bay u aqoonsan lahaayeen haddaba waxaan ka baqayaa inay dhahaan dameerkii shahaadada waa laga aqbalay oo dameerkuma jaamacadu dhameeyay waa maxay shahaadu qaat war buntada ay ridada ku xukumeen ay qarxiyeen ma la dhisay horta ceelashi waa la dayactiray malaay bad ku jira xawaajigiis ku tumoosiin war magaalo kastoo shabaab laga xoreeyo iyo geed kastoo loogu soo gambado ridda inay ku xukumayaan waa iska caddahay war ma haysaana Soomaaliland maalinta afraad waxa ka socda kala saaristii ururada siyaasadeed war gaboosow madax ka tirs miyaad u taqaanaan mise madax taabasho warkayga dhexgelina urur kasta waxa laga rabaa inuu kun qof oo taageerayaashiisa soo taago oo madaxa laga taabto kow laba loo tiriyo ururkii 6 gobol ee Soomaaliland min kun qof buuxin waayaana wuu hadhaya war gobolka sama kun qof laga rabaa war mid ka waaya wuu hadhaya see loo weynay la mareeyay soo ma taqaaniin waxaani weediha Soomaaliland xamar amal miya tamitado degma ku yaalo war waxa la yiri waxba yaana saan doonayay nabad ku daanshoone waxba yaana deegaan baxdiya darar ku noolaane waxba yaan durbaan iyo aroos loo dabaaldegine waxba yaan baraagaha dudumay daafaha marine waxba yaanay duugtiya tacsidu duhurna moogaane mar haddaanan duuduub u liqina maradeel qaafa oon sida dad qaarkii cabsidu dawgi naga leexin ma dayaco ilaahay naftan samir daraanayne marun buu dilaaca xaqii lagu dadaalayay marun bay wixii hoos u degay soo dalacayaane xagaayana mar bay diga rogtaan reerihii degaye oo waa la doogiya haddaan layga dacaroonin shacabka waa la hadaayinkaa weydin darajayne isku duub masaawaxatihiin uliya diirkeede midnimaa idiin dane hayaan laydinkala daadin digtoonaada cadowgiinnu waa daymo dheer yahay isku duubniba dadkayagow dulli kaga baxdaan dadkayagow nabadda intiyo deeqiya wanaag ku durduurataan cumarow googa haway cigalle caradaynu joogniyo cisbitaalada waddankeena keeba u cajiibsan casriga ugu fiican caddayn baan u hayaayo alcaasimaa la yidhaa roolaya dhalaan cid kastoo maanta joogta caashaqdo u codaysay caaqil baa tahay am ahaan bulshadayna cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima